sharci darrada diidan anigu wax kale ma diidan marka maxay tahay sharci darrada lagu dhaqaaqay sharci darrada lagu dhaqaaqay waa dastuur jabintaas qodoba madaxweyne ku-xigeenku uu ku leeyahay oo dadkii maxay tahay dastuurka samaystay ay ku dhigeen oo ah in madaxweynuhu iyo madaxweyne ku-xigeenku ay ka wada tashadaan hada dastuurka dib u raacdo ee qodobka 8aad warqadiisa 5aad oo madaxweynuhu leeyahay qodobka 11aad oo dhan ama warqadiisa 2aad ay eegi kartaa waxaad ula jeedaa dastuurka qeexaya madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka inay ka wada tashadaan haddii magacaabid la samaynayo heer wasiir ah ama taliyayaal ah madaxweynuhu ku qoro markaan arkay qodobka 8aad waxa la wixii qodobka 8aad ku soo baxa oo digreeta ah waxa ku ansaxaysa oo sharci ku noqonaysa markay ka wada tashadaan madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku magacaabista hadda u dambeysay wasiirada iyo kuwa xilka laga qaaday warqadii lagu magacaabay hortaalla sidan bayna u qoran tahay madaxweynuhu markuu arkay dastuurka dawlad goboleedka Puntland qodobkiisa 8aad markuu arkay aqoontooda kartidooda iyo way aragnimadooda shaqo markuu la tashaday madaxweyne ku-xigeenka dawlad goboleedka Puntland oo adiga Axmed Karaash ah miyana lagu la tashanin Axmedow adeer ma dhicin marxalad aanu ka wada tashano markaa xaalkayga hormooraysa ayaa mar xogaa ma maqlaysi odayaashu way iskhilaafeen waan maqlayay bal ma xaqiijin kartaa adiga ma jiray khilaafka mudaba khilaafkaasi waa jiray khilaafkii annagu aan ka wada hadlin oo isaga iman oo daaweyn meel wada tashan karaa adaan ku dhiibay tan dambe haynoo dambayso ee magacaabistii dhawaanta khilaafkan hore maxaa sabab u ahaa khilaafka hore waxa weeye wada tashilaan wax isweydiin la'aan madaxweynaha waa la doortay anna waa la doortay waana wada doortay waxaana la wada doortay inaanu wada tashano wada maamulo aan kala barsaneebo oo de madaxweynaha ahaado anna ku-xigeenkiisa aan ahaade inaanu xogaal u wada noqono waxa socda waxyaabo badan oo aan maxay tahay diidanahay way jiraan waxyaabo badan oo inaan anigu maxay tahay qabto oo la qabto madaxweynaha ahayd oo aanan qaban way jiraan marka way badan yihiin mar rabo anagu maxay gudaha iyaga mooyaan inaan dibadda u saaro waxyaabaha aan ku sheegay Axmed Karaash laakiin waxa la yiri khilaafku wuxuu ka bilowday markaad qoonsatay taliyayaal ciidanka madaxtooyada la kala bedelay soo wax sahlan ma ahan in askari lagu bedelo taa ma dhib bay leedahay ka qura ma aha way sahlan tahay si markaad u eegto waxaan qoonsay taliyaha madaxtooyadu waa meel naga dhaxaysa oo wada shaqaynaa wada joognaa wada maamulaa madaxweynuhu markuu wiilkiisii uu keensaday wiilkii anigu aan keenayna uu meeshii ka eriyay marka meel la isku halayn karaa ma marka iyada qura ma ahayn waxyaabo ka horeeyay bay ahayd oo aan doonayay maxay tahay in arrinku dibadda u soo baxo mar haddii madaxweynuhu ka waantoog waayay waxa sanadii markaas soconayay oo noocaas oo miran marka idinkood awal bay isku fiicneen in warqadan sidaas loo qoro la yiraahdo Axmed Karaash waa la tashaday waa qalad baad leedahay warta anaga aan basalaanta ba iska qaadin miyaan wada tashan karaa adigu aqligaaga la kaaso Axmed Karaash in kastood qodobo dastuur soo xiganayso in Puntland kuma cusbid xukuumadii Cabdiwali Gaas 5 sanad la dhameysatay 2 jeer baadna wasiir noqotay mar wasaaradda arrimaha gudaha iyo dawladaha hoose xil culus wadahaysay hadda madaxweyne ku-xigeen baad 2 sano ku dhow tahay odayna waa tahay oo ninkii la rabay inuu gacmaha hoos u dhaqo waa adiga Saciid Cabdullaahi intaad u tagtay oo hoos u la hadashay ma tiri daadeer waxaan ka daa so many times timaha ka badan haye muxuu ku yiri marka aniga ma adeeyo kala u tagay adeero meeshtan ana madaxweyne ka ah buu yiri sidoo dhaqmayana de waa waqtay ma aduu ku yiri Saciid kale aniga adigu sida kugu yiri ana meesha madaxweyne ka ah naam hadda maxaad yeelay Axmedow hadda waxaan yeelayaa de oday baan haysaadii sheegay oday baan haysanadii barkaana odaytinimadaas wax ku soo waday waxaan dastuurka iyo sharcigaas aan ilaalinayaa kaas ma ku taagay